هذا بريجيبوتي هدي أنا هاي سومالي وين مركا أي نقطة حمرابي وانو نقانا حتى قبلنا على مدى لا جبي الصومالي وين وحنا نقانا ريح حمرابي يانو نقانا أنا كوا حنا يدد ما درتي لقطة الصومالي كا سكول كانوا ما دقوا تاريخ الصومالي كانوا لو ما دقوا ضد وحنا هيك الصومالي أهانات تاريخ الصومالي كا أنا دو وحبك فهمين أنت هذيك كشكل اللي جاي هذا مد أن كشكين كرم يشرتهم مركا وحنا أنا كوا كأمسنا حمراوي ده ضد عبسية walaalkii dilay dhagaraysan gacan ku dhiig la sixirka yaqaana haafada aan deganahay markuu qof xamaraawi uu soo galo waa la is ururin jiray waxa la dhihi jiray guriga reer xamar baa soo galay is ilaaliya gabdhaha waa loo sheegi jiray halka rag xamaraawi ah kreesta guriga wayna sixirayaan wadankoogii bayna geysanayaan lugta laga xidhay waxa laga dhigay xoolo maalintii xoolaad ahaan habeenkii maxaybaad ahaan adiga cabsi oo kale yaa nooga sheekeyn jiray oo meeshu xamaraabi uu joogo manu ag joogsan jirin 2000 Djibouti waxa lagu caleemisaaray madaxweynihii Soomaaliya waxa imid Djibouti xamaraabi odayaal calool waaweyn wiilal qurqurx badan oo labisaad qurux badan Mareykanka ka imid Yurbaha ka imid dad waxa imid VIP ayaa imid wadankii Djibouti waxaana la dhihi jiray is ilaaliya wallahi waan ka cabsoon jirnay gabadha uu nin xamaraabi guursaday jacayl buu u guursaday anaka nagama dhaadhacsaneen gabadha caynkaada ha nin xamaraawiya guursado xamar buu la aaday amba Yurub buu la aaday amba gabar Yurub joogto Djibouti haduu nin xamaraawiya guursaday way sixran tahay waxaasa naga dhaadhacsaneen markii hore laakiin alxamdulillah Soomaali weyn waxa ay tahay waan ogaanay alxamdulillah marka waxa jirayay haafada aan deganahay fanaan waxa galayay la oranayay CD wuxuu ahaa nin wanaagsan dadka xiriiriya jaarka og salaam kula dhaafeen maxadaanay dad badan xitaa wallahi xoogiisa qoodin jiray nin wuxuu ahaa aanad laga sheekeyn karin oo bilaadantinimada xambaarsan buu ahaa CD marka CD xamaraabi uu ahaa xamaraabi waa u iman jirtay xamaraabida u iman jirtay baan soob iyaan baranay xamaraabida waxay ka dhigantay CD baan baray haafadii aan deganay wuxuu qabayay fanaanadeeda Rooda Daahir ayuu qabayay marka CD wuxuu yahay iyaan anaguna xamaraabadii kale iman jirtay ka aaminsaneen inay dad nadiif ah yihiin dad fiican inay yihiin iyaan ka aaminsaneen inkastoo haddana marka la arko nin xamaraabi dib loo guranayay laakiinse waxaan ka aaminsaneen cabsi markaan CD baranayna waxaan ka aaminay dad maad aragtay saaxiibo salaada dad fiican dad wanaagsan iyaan ka aaminsaneen iyaan aragnay waxaan soo aaday qurbihii markaan imiday waxa la igu dhahay marka la weydiyo Afrikaan ayaa ka tahay waxaan ay Djibouti ha anagu wadankayga waxaan ay wadan calan leh adduunka laga yaqaano xitaa anaga dhaqankaygu adduunka galay yaanahay laakiin marka aad tiraado Djibouti dadku way hakadaan badidooda waa la hakadaa qofkii maaragtay mutacallimada maaragtay aqoon leh mooyaane dadka kale way hakadaan Djibouti aniga marka waxaan ku dhihi jiray waxaan jaarnahay Ethiopia iyo Yaman ma oran jirin Soomaaliya iyaan jaarnahay ma oran jirin waayo Soomaaliya maskaxdeeda ma soo gali jirin ba wallahi Soomaaliya maskaxdeeda ma soo gali jirin Djibouti waxaan jaarnahay Ethiopia Yaman ha wala iska ka dhaafi jiray gabadhaydii weyneed waxay gashay iskuulka maadaama iskuulkii gashay aniga waxaan saaxiib la noqday dadkii ciyaalkii iskuulka la dhiganayay hooyooyinkood yaan saaxiib la noqday dadkii hablihii dawa i wareysteen waxa la igu dhahay nimcoy halkay ka soo jeeda Afrika ayaad ka tahay markaasaan dhahay aniga waxaan ahay Djibouti halkay ku taala Djibouti waxay ku taala Ethiopia iyo Yemen baan jaarnahay Ethiopia dadkana Ethiopia xoog u garan Ethiopian jaarnahay maalimaha kamida gabadh baa igu tiri nimcoy halkay ka soo jeeda Djibouti halkee waxaan ahay Ethiopia iyo Yemen iyaan jaarnahay luqadeed ku hadashaa bay igu tiri eeg waa gabadh ciidan u dhalatay luqadeed ku hadashaa bay igu tiri Soomaali baa tahay Soomaali baan ahay wallahi markay Soomaali baa tahay markay igu tiri waan soo booday Soomaali aan ahay markaas igu tiri Soomaali aniga markaan gurigay imid waxa iga dhaadhacday dadkan maxay ku garan waayeen wadankaaga u garan waayeen meeshu khaladka uu ka jiro iyaan gartay markii dambe waxa aan bilaabay in aan dhaho aniga waxaan ahay Soomaali reer Djibouti way fahmi jireen dadku nimca Afrika iyaad ka tahay marka la igu dhaho waxaan ahay Soomaali reer Djibouti
markaaba waa markaaba dadku way soo saarayaan markaas reer Djibouti calankaasaan haysana dadka halkaasaan hay laakiin shanta Soomaalana la dhaa markaasaan u macneeyaa markaas dadkuna gartaan inaan Soomaaliyeed aan hayna anigu iskartaa in aan Soomaali nahay reer Djibouti waan garanaynaa oo waan dhahnaa Soomaali baan nahay laakiin waxa meeshii aan soo hormarinaynaa reer Djibouti baan nahay reer Djibouti dadka ma aragtay aqoonta saa lahayna ee mutacalimiinta aan hayna ajaanibka wadanada kale ma soo saarayaan qof mutacallim oo wax barto adduun ka warhaya baa soo saari kara Djibouti lama soo saari karo dadka kale ma soo saari karaan marka waxa aan gartay oo qiinsaday inuu calanka buluugu uu yahay jisigeyga asalkayga qabiilkayga dhan ee Soomaalida inuu yahay marka la igu dhaho iyaa tahay Soomaali reer Djibouti maana dadku way fahmayaan aniga waan farxaya markii lagu fahmo qofku ku fahmo ma intaasatay waad farxaysaa adigiiba wixii doona laga aaminsanaa Afrikaana laga aaminsanaa dad gaajoona laga laakiin qofku ma ku raha wadanka batay waad farxaysaa marka hadii aad sheegan weydo calanka buluuga oo Soomaali baan ahay aad oran weydo qofku garanay ma jirto waxaan rajeynayaa inaan madaragtay anakana wadankeegana inaan Soomaalinimadeedana la baro iskuulkan ugu dhigo luqadda Soomaaliga maxaadane waxa aan nahay meesha aan ka soo baxnay meesha aan ka tafiirnay calanka buluuga inuu yahay qabiilka dhan ee adduunka nagu yaqaaneen hadii aan reer Djibouti nahay hadii reer Somaliland nahay hadii Soomaalida Ethiopia nahay hadii Soomaalida Kenya nahay jisigeyga ay adduunka nagu yaqiinsan yahay amba adduunka nagu garanayo waa calanka buluuga hadii aad sheegan weydo waxa aad tahay ma jirto wallahi shanta Soomaali calanka buluuga hadii ay sheegan waayaan oo dhihi waayaan Soomaali baan ahay markaaba qofka aad ka tiraahdo ajaanibka Soomaali baan ahay maskaxdiisa maxaa u imanaya ku soo degaya calankii buluuga ma ku soo dego qofku uu garanaya marka asalkeenu jisigeenu qabiilkeenu waa calanka buluuga qofna uma baahno anaka u baahan calanka buluuga shanta Soomaaliyeed anaka u baahan ina aan dhisano Allahu akbar sadaqa Allahu wala yadaamaya in aan dhisano in aan dhowrano in aan u duceyno in aan maxadana daranyada aan kala dawano in aan markastiba calanka buluuga maskaxdeeda maankayga guriyahayga in u surnaado qasabay nagu tahay waa sheyga quraatay ee adduunka nagu yaqaano waa waxa waa calanka quraatay ee asalkeenu in aan nahay ay ka muuqato ee qabiilkeena ah markaan Soomaali nahay